dhammaantiin soo dhawaada salaamaya excel maanta waxaan ku sameynaynaa waxa la yidhaahdo income iyo expensiga qof kasteeta oo shaqaysta waxaa maaragtay ama ha ahaado shaqa aad meel ka shaqaysid ama ha ahaato mid aad business ka soo saartid waxbaa ku soo gala waxba kaa baxa marka excel ma ku maamuli karaa ma ku arki karaa ma kala socon karaa si ay maaragtay savingkaygaas aan mar walba uga taxadaro in maaragtay ay wax ii haraan taasaa rabnaa maanta inaan inta ku sameyno earned income waa lacagta meel aa intaa u shaqo tagtay aad soo aangaraysato soo shaqaysatay business incomena waa lacagta kaa soo gashay business aa wax ku leedahay ma garatay ama adiguba aad leedahay waa labadaasba categorigooda waxaa la yirahdaa income oo wax ku soo galay expensigana waa wixii kaa baxay marka hadda waa si aanan waqtiga idinkaga qaadin waa si maaragta waa si habeeyey waa si color gray like waxaas waa formatting waxaas waa optional muhiimadda waxaa ah structurekina hadda arkaysaan earned income waxaad tirahdaa waxaad maaragta shaqaysataa oo bil walba aad shaqaysataa oo kusoo gasha bejegaaga 4500 waay magarat business incomena lacagta shaqada kaasoo business kaasoo gashana waxaa weeye aan dhahna 3500 halkaas marka total incomeka waxaan isticmaalaynaa function labadan isu kaa darto waxaan leenahay equals sum waxaan leenahay labadan noo sum garay isku dar yaa marka qaybtii koowaad objectivekii waa gaarnay total incomekeena waa aragnaa waa 8000 expensigana sidoo kale mortgageka waa guriga qaadatay oo bil walbeeto lacag lagaa qaada gurigana weli saafi kuma noqon kama dhammaan marka waxaan leenahay 2900 baa dhiibtaa guriga health insurancega waa kaarka caafimaadka kaaraa gadatay lacaga kusoo gasha dowladdu kaar caafimaad kuma samayso suuqa ka gadatay marka kaar caafimaad oo reerkii carruurta u gaday 1500 waa bil walba laga qaada grocery waa maaragtay adeegii waa caanihii carruurta waa bariiskoodii waa hilibkoodii waa baastadoodii waa cuntadoodii waa wax walba marka grocerygana aan dhahna bishii waxaa gasha 655 money wiring waa lacagta family supportka ah oo xawlaada la dhigo oo dadkii qaraabada ahaa loo diro marka waxaan leenahay waa 535 aan owra insurancega waa caymiska gaariga oo maaragtay laba gaari haddaa leedahay oo kale 3 gaari haddaa leedahay waxaa lagaa qaadaa 508 waxaan waa ma ahan qof incomekiisa maaragtay si toos aan u xisaabinayno waxaani waa sida habka maaragtay incomeka iyo expensiga loo sameeyo laakiin qofna financial informationkiisa ma isticmaalayno phone biilka aan dhahna telefonka internetka wifi-giisa leh waa 320 aa laga qaadaa school expensiga waa cayaalka lacagta maaragtay bishiiba kaarka ugu shubtid oo iskuulka ay ku isticmaalaan waxaan leenahay 272 dining out waa labada maalin oo sabtiga axadda ah oo guriga aan cunto laga karin magaalada laga cunteeyo ay maaragtay hooyadu nasato caruurtii ka nasato marka cunto karintii markaan dhahno 244 electricityga waa korontadii iyo gaaska wax lagu kariyo waxaa laga qaadaa 240 car iyo maintenancega waa gaariga shidaalka lagu shubo iyo oilka marka laga bedelayo waxaas bishii waxaa kaaga baxda 126 marka another sum ka halkan kusoo isticmaalno kale aan taasna gelinayna waxaa leenahay equals sum maxaa isku daraysaa expensigeena oo dhan isu kaydar expensiga oo dhan isu kaydar intaraalan wuxuu dhahay marka maanta la incomekaagu waa 8000 total expensigaagana waa 7300 marka labada functionkan saamkaan isticmaalnay soo maha haddana hal formula oo annaga aan dhisanay aan isticmaalayna oo ku fiirinayno lacagta noo soo harta equals waxaan leeyahay 8000 minus laga jaray expensiga oo ah 7300 akaa marka wuxuu dhahay 700 waa emergency ahaan iyo saving ahaan ku haraysa hadday marka wax isbedelaan marka waa dhisatay
excel aa ku dhisatay wax dambo aa ka bedelaysid oo aan ka ahayn hadday waxyaalahan isbedelaan hadduu incomeku isbedelo iyo hadduu expensigu isbedelo ma jiraan waa saas wax shaqo kale uma baahan waxaad tiraahdaa businesska incomeka iga soo galay bishan waa 4,299 marka total incomekaaga kor u kacay savingkaagina 1,499 saafi ah waa kuu soo hartay expensigiina waa sidiis aan dhahno money wirinka waxaan diray 1,256 waan diray waxbaa maaragtay emergency dhacay marka intaasaan diray waa kaa marka savingkaaga marka hoos u dhacaya 778 kuu soo harta waayo lacag badan wax wilaada aad dhigtay aan dhahno kaarka maintenancega bishaan waxaa naga baxday 88 keliya xoogaa lacagad 816 bay savingkii noqotay maaragtay akhyaarta journalkan ku xiran maanta waxaa aragteen excel sida loogu sameeyo income and expense hal mar aad dhisaysaa hadhowti on nambaradaas aad gelinaysaa wax complicated formulooyin ay u baahan tahay malaha waa sum function oo halkan aad gelisay si aad total incomeka ugu qabatid iyo sum function kale oo halkan aad gelisay si aad ugu qabatid lacagta baxday oo dhan itemskan lacagtooda dhan halkaana waxaa gelisay one formula oo kala jaraysa total incomeka iyo total expensiga waxaanoo ballana janalkan iyo casharada dambe ee aan soo geliyo halkan sidaas iyo nabadgelyo